السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ويبك حمر عده oo aad ugu barateen barnaamijta faa'iidada u ah bulshadeena Soomaaliyeed. Caawana bahdu waxa idin soo gudbinaysaa barnaamij la magac baxay codka maatada. walaalayaal waxa tihiin ulul amrihi ayatihiin ilaahay baan amray in aan idin ateecno oo waanu ku khasbannahay. waxa tihiin culimadeeni ilaahay baa darajadiini kor u qaaday oo kitaabkiisa kariimka noogu sheegay markii uu yiri walladina utul ilma darajat dadka in badan baad dheertihiin. rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu idin gaarsiiyay heer anbiyada maahane ayaan qof kale u sagaareenin markii uu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi al ulama warathatul anbiya culimadu waa kuwa dhaxlay oo jooga booskii anbiyada. darajada sare wuxuu ilaahay idin siiyay waxa weeyaan in aad noo qabataan oo aad umadiina shacabkiina Soomaaliyeed aad u qabataan waxay anbiyadu u qaban jireen ummadahooda. waana la og yahay oo waxa weeyaan in aad badbaadisaan dhan walba inaad ka badbaadisaan xagga jahliga inaad ka badbaadisaan dulmiga inaad ka qaadaan dhiigooda iyo xoolahooda inaad badbaadisaan oo aad ku badbaadisaan kelimada laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah. ummadda Soomaaliyeed waxay idin ka sugaysaa waxa weeyaan waxa nabiyaalka ay ka sugahayeen ummadooda. walaalayaal waanu idin jecelahay waanu idin ixtiraameena haddaad tihiin xukuumad iyo haddaad tihiin cidda ka soo horjeeda gidigin macallimiinteeni baa tihiin quraanka idinkaana soo baray culimadeeni baa tihiin cilmiga idinkaana soo baray madaxaad noo saaran tihiin laakiin waxyaabaha aanu idinka sugeynaa waxyaabo waaweyn weeyaan waa waxyaabo xaq ah u leenahay annaga waxaan tirsanaynaa in aan dulmannahay oo aanu ku dulmannahay dhexdiina inaan ku dulmannahay dhiigeeni 24 saac har iyo habeen in dhexdiina uu ku daadan hayo sababtiinana in uu u daadan hayo. walaalayaal maxaa keenay maanta gabadheeni xijaabneed hooyadeeni xijaabneed dib iyo dheefba ku asturneed gurigeeda in ay maanta banaanka u soo baxdo oo ay dawarsato reeraha ay dawarsato in ay ragga dhex seexato geedaha agtooda inay geedaha hoostooda inay la seexato in ay weydo hoygii ay ilaahay ku caabudi lahayd oo ilmaheeda ay ku korsan lahayd. maxaa keenay idinkoo jooga maxaa keenay in aanu noqono yad sufla annagoo aanu nalagu yaqaanay in aanu nahay al yad al ulya soo idinkiina baray maaha al yad al ulya khayrun min al yad as sufla. gacanta sare waxay ka khayr badan tahay gacanta hoose. caad ahaan uma aynaan lahayn in aan dawarsano oo aanu tuugsano oo aan dawladaha jaarka ah aanu tuugsano oo aan maalin walba aanu saarnaano shaashadaha. walaalayaal masaakiintaas hoostiina joogta ee dhiigooda la daadinhayo maalin walba uu qubanhayo idinka mas'uulka ah maxaa wacay rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi idinka naga soo gaarsiiyay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi. kulligiin waxa tihiin ilaaliye ayaa tihiin idinkaana mas'uulka ah mid walbana wuxuu mas'uulka yahay cidda uu ilaalinayo oo raacayo oo uu maaragta hogaamiyaha u yahay. idinkaana baray maanta idinka dhiigeeni daadinhaya ra'iyadiini miyaynan ahayn dadkii aad mas'uulka ka ahaydeen dadkii aad ay ahayd in aad badbaadisaan miyaynan ahayn. maxaad ku kala duwan tihiin haddii aad tihiin macallimiinteeni iyo culimadeeni idinka iyo maxaad ku kala duwan tihiin qabqablayaashii dagaal oogayaashii muddada 20 sano ah dhiig shacabkooda daadin hayay guryahooda jajabin hayay cirdigooda ku xadgudba hayay ruubiga ku rida hayay cayrinay oo ka qaxiyay dalkoodii hooyo iyo guryahoodii hooyo. maxaad ku kala duwan tihiin maxaanu idinku kala socnaa.
wardad kan dhexdiina ku baaba'aya oo sababtiina u baaba'ahay oo dhiigoodu u qubanhayo soo kuwi ma aha ya rasuulkeena suuban uu jiri wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum war ma waxa leedin kugu gargaaraa oo leedin kugu irzaaqa illa bidu'afaikum dan yartiinaan maxaastiinaan maatadiinaan dadkan dhulka yaala ee aan hubaysnayn dartood ya ma ahanima wax kala leedin kugu gargaara oo leedin ku irzaaqa rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu uu doonayo in uu soo guulaysto oo uu dagaal aado ghazwa min ghazawaatihi markuu rabo in uu tago oo uu baxo dadka danyarta ah maxaasta ah aan hubaysnayn ducafada ah ee ma aragtaa dhulka yaala jiiska indhoolka kan jiran waxaasoo dhan intuu soo ururiyo oo meel isugu keeno dhihi jiray soo duceeya dagaal baanu tagaynaa العلماء ورثة الأنبياء إذن كان بري بوسكي رسول كان إذن كجوجا دقن كيسي أخلاق ديسي إبدبادي ديسي رحمة ديسي أي أمد الصومالية ما أنت إذن كجباها انتهاي هداتهن حكومة دي هداتهن يقولون كسر الجيد انتبه رسولك حوليه إنما ينصر الله هذه الأمة إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم إنما ينصر الله هذه الأمة أمة محمد أمة النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلهي وحقوق قرقارة هيا بضعيفها كذا ضعيف كأه وضغا إن أولك أدمدح جريسين هو يضا أورك لأد دوحذين المها أغونك أد بربريسين أو أد قرقودي مدح أجبسين مساكين تا قروبك أد عيرسين أد كعيرسين مقالة meel ay harsatay iyo meel ay ciirsatay la dadkan banaanka ka wada qaylinay gacmaha horsanaya dadkan weeyaan dadka loogu gargaarahayo dadka jihaadka galaya warsoo jihaad dooni meesaan soo jihaad kuma jirtaan warsoo inaad guulaysataan dooni meesaan warsoo in lidin irsaaq dooni meesaan dadkii lidin ku gargaar lahaa ee ilaahay uu idinku irsaaqi lahaa waa dadkan aad madax uga istaagteen weeyaan bidacwatihim ducadooda iyo salaadooda iyo ikhlaasnimadooda weeyaan idinka mas'uul ka ah ilmahan aan qaan gaarin ee 10 jirada ah ee hooyooyinkoodna ay ooyahayaan ee aad xoog uga soo qaadateen oo aad askarayseen oo aad ciidamada ka dhigteen iyagoo aan qaan gaarin qof aan salaadii ilaahay lagu lahayn oo cibaado aan lagu lahayn oo aan waajib saarneen dadka jihaadka gelinaya aan qaan gaarin ee jihaadka gelinaya idinka mas'uulka ah maalinka qiyaamaha maxaa wacay rasuulkeena suuban salawaatu rabbi wa salaamu alayhi idinka nooga sheekeeyay idinka soo gaarsiiyay qowlkiisa in uu maalinkii بدر iyo Uhud iyo Fathu Makkah dagaalo ka sharaf badan ka qiimi badan dagaalka maanta aad kula jirtaan shacabka Soomaaliyeed dagaaladaas ka qiimiga badan ee muqaddaska ah 15 jir iyo waxa ka hooseeya rasuulku waa uu diiday afkiinaanu ka haynaa sida iyada maantana dagaal ka hooseeya oo lagu dilahayo lagu dulmahayo shacabka Soomaaliyeed ayaad ilmahoodii ayaad maanta oo aan qaan gaarin aad ciidamo ka dhigateen markaas aabayaalkood iyo hooyaalkood aad ku direysaan hadana oo ay jijibin hayaan idinka mas'uulka ah maalinka qiyaamaha ilaahay hortiisa اتقي دعوة المظلوم عالم باتها اتقي دعوة المظلوم معلم باتها اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما